waxaad meel walba ku maqashay ereygan diga mana garanaysid waxa laga wado muuqaalkan ayaan ku sharaxi doonaa diga waa luqadda isticmaasho dhalinyarta waxayna la macno tahay quuda kumbl amba freund saaxiib amba walaal amba qolba qofkii guudo tusaale ahaan haddii uu qofku yiraahdo hey diga faskeet ma aha hadal xun inuu ku yiri waa hadal iska ciyaalka xaafadda ama hadal wanaagsan inuu ku yiri oo kale ayay ka dhigan tahay mana la macno aha inuu adiga ama jirkaaga wax ka sheegay ama uu ku aflagaadiyay diga waxay ku sheegaan inuu asalkiisu inuu ka yimid heesa kamid ah heesaha Jarmalka ama heesaha raabka loo yaqaano in lagu arkay markii ugu horeysay aynu eegno dhowr tusaale diga alles gut bei dir du siehst nicht so gut aus waxay ka dhigan tahay maxaa kugu dhacaysay tahay uma ekid inaad fiican tahay kan kale hey diga der Film gestern im Kino war richtig krass filimkii shalay aan ka daawanay silmooga ama kiinoda aan ka daawanay uu shidnaa amba khatar buu ahaa amba kala kacsanaa ayay noqonaysaa diga ich hab gar keinen Bock mehr zu lernen waxay ka dhigan tahay niyad uma hayo inaan wax sii dhigto ama aan wax sii bartay niyad uma hayo kulli meel waad ku aragtay labadan erey ein und 30 und snitch waxaa rabtaa inaad ogaato macnahooda ama macnaha ka dambeeya labadan erey halkan ayaad ku ogaanaysaa labadan erey dhalinyartu isticmaasho ama ciyaalka xaafaddu isticmaasho macnahoodu wuxuu noqonayaa faqeyta ama spitzel Soomaalina waxay ku noqonayaan khaa'in ama basaas tusaale abdi ist ein echter 31 macnaheedu wuxuu noqonayaa ama aynu Soomaalida nidhaahnaa 31 hebel waa mas amba hebel waa khaa'in tanna macnaheedu waxay noqonaysaa abdi ist ein echter 31 abdi waa mas amba abdi waa khaa'in haddaba siduu ku soo gaadhay dhalinyarta ereygan 31 wuxuu ku soo gaadhay musiga ama heesaha raabarada musiga ama dadka heesaha tuma ama qaada waxay u isticmaalaan 31 inay ku caayaan ama ay ugu geystaan dadka faqeetaha ama khaayimiinta ah ama sirdoonka ah amba basaasiinta ah silamida 31 magaceeda kale ee Englishku wuxuu noqonayaa snitch iyo 31 waa isla macno labaduba aynu eegno labadan tusaale si aad u sii fahantaan wieso hast du Mama erzählt dass ich gestern Abend länger weg war du 31 sabab aad hooyo ugu sheegtay shalay toole inaan in badan maqnaa khaayin yahay ama khaayimad yahay tusaalaha kale du bist mir fremd gegangen wie kann ich dir noch vertrauen du bist eine richtige Snitch waxaad iga raacday qof kale sideen kuu aaminaa mar kale waxaad tahay khaayin amba mas ayaa tahay ayaan Soomaaliga nidhahnaa inta badan qofka khaayinka ah waxaan rajaynayaa inaad fahantay labada macne ee labadaas erey ay lahaayeenba danke mahadsanid waad ku mahadsan tahay intaad daawatay muuqaalkan haddii aad xiisaynaysid muuqaalo badan oo kuwan oo kale ah fadlan subscribe garee si aad ula socoto